كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشركي أفرتني اللباد قيبتي اللباد برنامج كيني بربارنت أبدك وحاين كسو قدو تشيرني ilmaha marka uu gaadho sanadka labaad ilaa laga gaadhay sanadka lixaad 5 sano 4 sano waxyaabaha waalidka looga baahan yahay in ay tahay inay sameeyaan ilaa 12 qodob baynu uga baahanahay insha Allah taala. afar kamid ah casharkii hore aan ku soo qaadanay insha Allah taala. maanta waxaynu arki doonaa halka ku qaadan doonaa saddex kale waxyaabaha waa marka looga baahan yahay waalidka in ubadka u sameeyo markuu 6 jir 5 jir meelaha maraya waxa kamid ah kow التوحيد، يعني إلهي سبحانه وتعالى وامحي كليينتيسا إني أبدك وامحي بران مركا وامحي أكبر باريان مركو لبتشيرها وحي نرام حيابها وقفي عن أبدك ورهوين كل واقعان إني تهي كلمة إلهي سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. مركا هذا اللي حشير بسوق قاري إيش كانوا سوق قاري هذا إنك واحد رباه هذا بين مكا التوحيد شيء إلهي وعلو عابد يحسن مكا إن لبره. marka de ambiyaduna calayhim salaatu wasalaam ubadkooda waa maxay aad bay ugu barbaarin jireen oo marka ay u bari jireen marka iyaga marka ku qanacsan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa maxay hadii ay ku barbaaran aqeedo toosan oo fiican inay marka maxay ku geeriyoon doonaan marka ay kuma maxay ku dhiman doonaan. hadaba qaabka loogu aqeedo loo baray waxa kamid ah Abdulrahman bin Sa'd waxa uu raximahu ta'ala waxa uu leeyahay yani xikmadaha dacwada waxa kamid ah buu yiri qofka marka dacwada loo sheegay waxa kamid ah horta bal si cilmiyaysan qofka in loogu sheego ama bil cilmi qofka soo cilmi leh in qofka horta waxa uu sheegay la bil jahl. talabaad waxa uu yiri shayga ugu horeeya ee qofka ama u sheegaysid ama waa maxay bilaabaysid halka ugu horeysa markuu taagan yahay waxaad ugu sheegaysaa waa maxay shayba maxay uu ka horeeyo oo ka muhiimsan yahay waxaad noogu sheegaysaa sida ugu soo dhow waa maxay qofkaasi waxa ku fahmi karo maskaxdiisa maankiisa maxay ku qaadi karo marka sidoo kale waa maxay qaabka ugu sheegaysan inuu ahaado yani qaab marka waa maxay degan oo dabacsan marka. hadaba aqeedo waa maxay ubadka waxaad ugu soo koobaysaa ugu muhiimsan markuu da'da marayo afar waxyaabaad. kow marka ugu horeysa waxaad inay ilmaha yar u sheegaysaa oo ku barbaarinaysaa yani Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu marka rabbi yahay. يعني ربي وامحي إنه يسوي ككونكو إنه يسوي معمولية كيسوي ضد كلام وامحي أبوري كيسوي الدون كلام وامحي إسكالة كيسوي ضد كلام وامحي أرساقية وحكام حلوي قارنا يعني التوحيد الربوبية الله ما كان وش يجسا كلاود حد وش يجسا وامحي يعني عبادة نصمينا يعني ما كانوا الدعاء سنة ما كانوا التكنة ما كانوا في عنات سمين يسد تاني عبادة تهيبة وش يجسا مركا عبادنا وامحي وإسكالة هي إلهي سبحانه وتعالى كلي مركا وعد كلا وامحي aan la siinayn marka kasadexaad waxaad u sheegaysaa waa maxay Ilaahay marka inuu leeyahay yani magacyo iyo sifooyin marka waa maxay wanaagsan marka uu leeyahay ama magac kasta waa maxay Ilaahay wanaagsan wuxuu ku tusayaa Ilaahay sifo marka uu leeyahay. ka afraad waxaad marka ubadka u sheegaysaa waa maxay markuu lixjir meelaha soo gaaro oo aad kala hadlaysaa oo ku barbaarinaysaa waxa weeye oo aad marka aad leedahay يعني ماشان aynu joogno hadda aynu ku noolnahay adduunyo baa yani adduunyo la yiraahdaa marka waxa loogu talagalay baadada qofku inuu ugu shaqeysto oo qofku marka ugu dadaalo oo marka qabsado ficil wanaagsan oo toosan si hadda waxa la marka daarta dambe iyadan aakhira loo yaqaano Ilaahay marka wax wanaagsan uu kaga abaaliyo amalkii marka adduunyada marka uu soo joogay. marka waxa leedahay inta aad yar tahay ilaa inta adduunka aad joogtid hadda wax fiican sii qabatid wax wanaagsan aad sii qabatid hadda marka la dhinto la geeriyoodo oo qabriga la geeyo oo la soo saaro Ilaahay marka wuxuu kaaga abaalin doona wax wanaagsan marka oo fiican. marka afarta shayba markii ubadku da'da marayaan ayaa marka lagu celcelinaya oo lagu tababaraya marka. qodobka lixaad waxa weeye al-ihtimaam bi ta'liim al-iimaan qabla al-Qur'aan waayadana waa arrin marka aad u muhiim weeye oo maxay de saxaabadii iyo salafus saalix dadkii hore wanaagsanaa dhamaantoodba
yacni ubadku markay yaryar yihiin waxyaabaha marka ay ku barbaarin jireen waxaa ka mid ahaa inay ubadka waa maxay caqiidadooda iyo waxa markaa qalbigooda degaya iyo iimaankooda inay markaa dhisaan intaanay qur-aankii iyo maxay diintii kale maxay aanay xataa aanay barinba markaa ubadka waxyaabaha aad barayso waxaa ka mid ah intaan wax kaleba aanad barin horta inuu intaan qur-aankii aanad barin inuu barto aad bartid yacni shaygaasi waa xalaal yacni shaygani waa maxay waa xaaraam yacni shaygan ilaahay waa ogol yahay yacni shaygan waa maxay ilaahay ma ogola markaa kadib ilmi waxaa ku koraya oo ku barbaaraya isagoo 6 jir ahba ilaahay marka waa maxay daacadiisa iyo shay kasta markaa wanaagsan inuu markaa u ogaado marka waxa laga yaabaa qofku inuu yaado marka qofkii ma wax la baraya sharciyada caadiga ah qofkii loo dhigay ma loo dhigi maaye laakiin intuu yar yahay waxyaabaha basic ah iimaanka ayaa marka waa maxay lagu kooriyaa marka lagu barbaarinaya saxaabigii marka Jundub bin Abdullah waxa uu leeyahay anaga marka nabiga maciisa ah waa maxay ubad yar ah ayaa waxaanu marka baran jirnay yani iimaanka marka ilaahay marka in la rumeeyo malaa'igtiisa in la rumeeyo rususha marka in la rumeeyo xuliga maxay anaga aan gaarin macnaha dadadii waa maxay qaangaanimadaba oo aan 15 meelaha xataa aan gaarin ayaanu iimaanka baran jirnay kadib markaan iimaanka barano yani quraanka ka hor kadib baan waa maxay quraanka marka baran jirnay kadibna marka wuxuu leeyahay waxaan marka sii korsan jirnay oo noo sii ziyaado jiray iimaankii marka soo baranay waa arrin aad u muhiim marka taasi waa maxay ubadkii caqiidada marka basic ah hore dhama maxay ayaad ka dhisaysaa marka ilaahay baad jeclaysiinaysaa diintii baad jeclaysiinaysaa nabiga baad jeclaysiinaysaa malaa'igtii buu garanayaa rusushii buu garanayaa maxay kutubtii buu garanayaa maanta aakhirada dambaysu garanayaa waxaas dhan waxay ka horeeyaan intaan quraanka la gaarin asaabicu qodobka waxa weeye tahfiidul abnaa alquraan fi sin almuwakkil marka hadaba imika waxaanu soo gaarnay da'dii ubadka lagu bari lahaa quraanka hadaba fiirsado oo waxaanu ka soo hadalay 6 qodob oo ka horeeyaba intaan quraanka la gaarin intaan waxbarasho kale la gaarin intaan ilmihii dibadda u bixin iskuuliga waxba aan lagu darin isagoo 6 jir ayaa maxay 6 shay laga baahan yahay waxaanu soo sheegnay waxa kamid ah waa maxay isagoo inuu maxay ilmuhu intaan quraanka baranba inuu isagoo fahanto maxay uu ducaysan karo inuu maxay yani waa maxay uu ogaado ilaahay marka inuu arkayo rasuulku waa maxay inuu ku dayan karo afar waa maxay inuu u fiirsado ilaahay waxyaabahan uu abuuray shan waa maxay tawxiidka ilaahay in la baro lix waa maxay iimaanka in la baro lixda marka ubadka aad ka soo dhistid oo aad si fiican u soo bartid oo si fiican ugu soo badalo u soo koro isagoo wax kasta garanaya ayaa hadda waxa la gaaraya marxalad marka loo yaqaano inaad waxyaabaha kooban ducooyinka quraanka meelaha fudfudo waa maxay dhan qaabka marka u xifdisiinaysid marka wali ma inaan gaarin xilliga madrasadii la geyn lahaa xilliga maxay u socon lahaa magaalada geyn lahaa wali ma inaan gaarin waxaan ku jirnaa wali waa maxay soo guriga jooga marka oo 6 jir 7 jir marka haddaba ilmaha waxa la yiraahdaa markuu yar yahay hadii marka quraanka waa maxay la xifdisiyo soo 6 jir ama 5 jir guriga joogaba waxay kor u qaadaysaa waa maxay ogaanaya islaamnimada marka qiimaheeda maxay marka ilaahay qalbigiisa maxay u gelinaya marka waxyaabaha kale ee ku jira faa'iidooyinka waxa kamid ah ilmo marka yar yihiin yani qalbigiisa saafiga ah ee waa maxay dad jiricsan waxyaabaha maxay uu ku beerin waxa kamid ah tii quraanka uu jeclaanaya marka laba waxa kamid ah yani mawaahibtii uu lahaa iyo awoodihi qofkan ku abuuray oo hibooyinku ku lahaa ayaa maxay u sii kordhaya quraanka maxay kor buu sii qaaday oo sii xoojinaya qofkii saddex waxa la yiraahdaa isagoo yar hadii waa maxay uu xifdinta u bilaabo يعني dhawaaqay oo xurufta ku dhawaaqayay iyo carabkiisii qaabka ugu dhawaaqayay ayaa u toosaya marka afar waxa la yiraahdaa ilmaha haduu isagoo yar waa maxay yani quraanka marka la xifdisiyo macnaha xifdin kaliya ma hadii aayad suuradaha aayadaha waxa akhrinayna macnihiisa waa maxay marka loo sheego isagoo yar yani ilaahay marka waxa uu gelinayaa nuur iyo hidaayo marka gelinayaa ilmihiisa waxa uu siinaya wuxuuna ka ilaalinaya oo ku adkaanaysa markastaba shaydaankiina ilmaha yar inuu waswaasiyo marka uu khalkhaliyo ay shaydaankiina ku adkaanaysa shan waxa la yiraahdaa ilmaha yar isagoo yar waa maxay aad diinta ku barbaarinaysa quraanka xifdisiinaysid oo kale waa wax adigana ajar ma waxa laga qorayo marka markasto ilmaha waa maxay aad wax fiican waa maxay aad ku beerato oo marka aad gashatid waa markasto adiguna maxay aad goosatid wax fiican oo wanaagsan adduun iyo aakhiraba markasto aayad quraan aad xifdisiisid oo macnaheedu sheegtay isagoo yar aad fahanaysid waxa laga wada aad tiraahdid
waa markasta adiga maxay tahay maxay ajar waa maxay ka la mid ah oo ku qoran markaa. haddaba waxaan sheegaynaa da'da markaa qaabka la xifdisan kartid marka da'da ugu fiican waxaa la yiraahdaa markuu 3 jir gaamarayo ilaa 4 jir markuu 2 sano meelaha u horeeyo ku jiro ilmaha waxa la yiraahdaa boodboodkiisa iyo ciyaartiisa marka aad u badan markaa soo kale macnaha inuu ku soo ag fariisto oo kula soo fariisto way adag tahay kaama ma yeelayo ilmaha yada meelaha iska caalay meelaha iska boodbooday si markaa maxaa qof wax wadiin kara ilmaha yar si markaa la xifdisan kara si waxaan wax u qaadi kara wuxuu qaadi karaa baa la yiraahdaa ilmihi adigu waa maxay meel kasto waa maxay uu calaaro inaad markaa maxay adigu aad markaa daba socotid magaalada dhinaciisa la socotid oo markaa wixii aad akhriid markaa isna waa maxay ka daba dhaho soo ciyaartiisa iska wataba ama waxa la yiraahdaa samacadaha inuu qaano oo kale ama waxa maxay suura leh oo markaa uu arki karo ayaa markaa la hor dhigaa halkaas waxa uu ka akhrinayaa markaa ama wuxuu markaa maqlayo dhageysan karo markaa dhageysan waxa la ama iska qaadanaya waxa akhrinaya markaa soo iska wata wixii markaa iska ciyaaray waxa la markuu da'da 4 5 6 meelaha uu soo gaaro marka wax noqonaysa markan waa xilli marka uu yar degay ciyaarta badan waxa uu ka soo nastay waxa uu fariisan karo markaa uu ogol yahay in markaa la fariisto wax la akhriyo wax la diyaariyo markaa. haddaba markaa waxa la yiraahdaa soo kale qaabka loo xifdiyo waxa ka mid ah baa la yiraahdaa waalidka inta soo kaxayeen la soo fariistaan yani xifdin badan ba uma baahan suurada ugu horeysa kale naas oo kale ama alxamdu oo kale marka xifdinayso kale waxa markaa la eegaa da'diisa la eegaa yani da'diisa 4 tahay 2 daqiiqo loo geeyaa haddii marka 4 jiro uu yeed 2 daqiiqo geey waa 6 noqonaysa Soomaa macnaha 2 daqiiqo aad u akhrinaysaa marka 2 daqiiqo markuu yar akhriyo iska cararaya marka iska tago marka haddana waxa laga maqnaada 2 daqiiqo kale ama 5 daqiiqo kale waa la soo celiyaa haddana da'diisa inta jirta waxa loo geeyaa 2 daqiiqo hadana baadna loo akhriyo sanad akhri haddana iska tagaya waa ilmo yar ilaa markuu iska tago waa maxay taas ma ku soconaya. haddaba waxa looga baahan yahay inay sameeyaan waxa kamid ah ilaa 5 shay meelaha koo waxa la yiraahdaa horta ilmaha yar yani ku adkaanin markaa yani waa diin baad baraxbaad ku kornaysaa fiican markaa ama maxay markastaba waxa la maxay haday dil noqoto oo kale haday af xumo noqoto oo kale haday xoog ku soo qabato waxa iska ilaalinaysaa markaa waayo shayga waa maxay quraanka waxyaabo badan iyo ducada waa maxay uu ka sii fogaanaya markaa la waxa la yiraahdaa shayga waa la jeclaysiiyaa marka ubadka يعني دعاء بريسان ورامد برحات كل برانسا شيء ما وينو تشعلاده وينو يسوي اسك عيادتي اسك وتو يراد هوي بارك ميي قرانك ميي سن عد ميدا وخي ان اخرنيه ميدا ما علمي وينو تشعلان كرو صدح waxa la yiraahdaa waa inaad siiso marka uu ku maxay quraanka ka xiftin karo yani shay screen oo kalaam oo arki karo oo kale ama ka daawan karo ama ku akhrin karo ama dhageysan karo inaad siisid weey afar waxa la yiraahdaa waa inaad marka u sameeysid adigu waqti u sameeysid marka waxaan subax oo kale gelinka hore oo kale waxa la saacada yar baan la fadhiisanaya ilmihi la fadhiisanaya aan la akhrinaya ku tababaran ku korinaya marka shan waxa la yiraahdaa waxa la fadhiisiyaa meel ku haboon waxaan u badanayaa maxay tawxiid u badanayaa quraan u badanayaa xifdinaysa waxyaabaha yar kooban waxa la meel fiican oo degan maxay ayaa marka la fadhiisiyaa marka waxaan markastaba idin sheegay waa maxay yani ilaa 7 siyaabood wadka waxay markay 6 jir ku jiraan ayaa waa maxay diinta loogu barbaariyaa oo loogu koriyaa marka hadii de qaabkan aanu hadal saanaga Soomaalida oo kale waxa laga yaabaa in qaabka dhan ay saahay inaga maqan yihiin oo kale oo ilmaha waa maxay waalidkii markuu da'da ku jiro ay tahay marka da'da ugu dhibta badan yahay ay isla dhibban yihiinba hadduu qalad yar sameeyo hadduu iska day waa maxay waxba in la bare waxa laga yaabaa de mar waa tirayo iga sheexiyaba kan yaa xudud ma gaadhay xilligii quraacda ma gaadhay waxay quraac ka fakartid wuxuu cun lahaa iyo meesha marka aad sheexin lahayd laakiin waxa loo baahan yahay da'da yar yahay inaad marka deganaan badan la timaadid dulqaad badan uu kaaga baahan yahay sabir badan uu kaaga baahan u sabirtid shay marka aad jeclaysiisid markastaba adigu aad salaada kaga horeysid ducada kaga horeysid quraanka kaga horeysid marka waxa ku barbaaro isoo marka iska degay iska fiicnaanaya marka kula qabsanaya marka inahaas aynu ku soo koobnaa insha Allah ta'ala wana sii wado nasharada dambe wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa ahkam wa ilayhi marji'u wal ma'ab